Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena. Waxaan ahay Ibrahim Jeef, waxaana idiin soo gudbin doonaa muuqaal aad iyo aad u saameyn badan kaasoo taabanaya noloshaada haddii aad tahay qof iskaabula ah iyo haddii kaleba. Fadlan muuqaalkan waxaan kugula talinayaa inaad dhammaysato aadna dhuuxdo qodobada aan kugu soo gudbin doonaa halkan. Aanse ku horeynay intaana muuqaalka gudaha u sii galin qodobadana aanan kuu sheegin aan degdegne adiga bishii ma tahay qof ay soo galaan ugu yaraan $10. haddii ay haa tahay jawaabtaada fadlan muuqaalkan waa kaagay ee dhammayso. kow marka waxaan ku bilaabaynaa haddii aad rabtid inaad noqoto qof taajir ah ama maalqabeen ah kaasoo bulshadiisa uu ku dhex nool yahay iyo waalidkiisa walaalihiis iyo nafsadiisuba ay noqoto kuwa horumarsan dhanka markii loo fiiriyo bulshada kaleeto. kow waxaan samaysanaynaa marka aan rabno inaan noqono qof taajir ah waxaa jiro goals iyo objectives in la degsadaa aan ka wado ama means iyo ends dheh. waxaa jiro waxyaabo looga baahan yahay qofku inuu leeyahay horta higsi iyo hami meel uu u socdo. kow marka si aad u noqoto qof taajir waa inaad degso hadaf kaasoo bartilmaameed u ah meesha aad rabtid inaad gaartid. markaad qodob aad tusaale ahaan oo kale qodobo aad degsatid kuwaasoo xoojinaya ama maxaa la dhahaye sheegaya waxyaabaha aad rabto inaad noqoto mustaqbalka. tusaale ahaan oo kale qof maalqabeen, qof taajira, qof guryo badan leh, qof baabuur leh, qof ganacsi leh, qof maxaa la dhahaye maasha Allah qodobo badan aad degsanaysaa. marka koowaad markaad degsato qodobadii, talaabada labaad waxaad samaysanaysaa haddiiba ay bishii wax kusoo galaan oo jeebkaaga ugu yaraan wax ay kusoo dhacaan waxaad samaysanaysaa miisaaniyad gaar ah oo aadan baajin marnaba. markasta bil kasta waa ku shubaysaa haba yaraata $1, $2, $3 intii adiga karaankaaga ah. markaas baajimaysid xitaa haddii aad weyso inay taas waxaa lagaa rabaa haddii hataa ay ku gamiso ama aad weyso inaad soo qallayso. qodobka saddexaad labadaas qodob markii aad samaysay oo aad soo dejiday hadaf aad ka leedahay noloshaada, marka labaadna aad sameeyday akoon ama maxaa la dhahaye miisaaniyad gooni ah oo aad bishii wax ku tuurto. qodobka saddexaad waxay tahay ha isticmaalin qarash dhan iska daa. ha isticmaalin qarashaan u deynaa. marka qarashku waxaa u deynaysaa qarashadu waa labo mid adiga haddii tusaale ahaan oo kale aad tahay qof asaga isfarsameeyo oo lacagtiisa asaga wax ku barta ama wax ku maxaa la dhahaye bil dhiiba qarashkaaga fadlan ha kontaroolnaado. waxaa jiro wax la yiraahdo waxaa jiro aragti oo dhaqaalaha markii la seef gareynayo loo adeeg lagu bees gareeyo la fiiriyo. mid horta haddii aad tiraahdo waa qaadaa caadi lumaysaa. mid kalena waxay tahay haddii aad raacdo waad ku guuleysanaysaa. waxaa jiro marka aragtida koowaad waxay leedahay haddii jeebkayga wax soo galaan sayfina aan rabo inaan sameeyo waxaan sameeyaa tusaale qarashkii markaan dhiibo iyo waxyaabihii igu waajibayay miyaan seef gareeyaa mase waan seef gareeyaa marka hore asaan wixii soo hara qarashka ku dhiibaa. waxaa sax markaa maadaama aad qorshe iyo balaan aad laheed adiga horena aad u soo degsatay miisaaniyadna ay ahayd inaad aruurido waxaa sax marka koowaad qaybtii sayfinka inaad ku hormarto oo aad adiga keedsato. qodobka saddexaad marka haddii aan meesha uga tago qodobka afaraad ee noqonaya saldhigaaga muhiimna u ah si aad u noqoto taajir waxaa la rabaa deyn ha qaadanin. inaadan deynta qaadanin oo aadan deynta ku fududaan. deyn cusub ha aqbalin midnaba. haddii ay mid hore kuugu jirtay adiga oo deyn hore kuugu qoreed fadlan waxaan kugula talinayaa hal mar ha dhiibin. maxaa yeelay waa iska fududay kartaa wax hal mar kaa baxo ma haysid tusaale iska yaryaray. laakiin qodobka shanaad wuxuu yahay shaxaadkana ha siinin qofna. wax shaxaad la yiraahdo qofna ha siinin. tusaale hebelow maanta niyahow wax aan tusaale ahaan oo kale maqaayad hebel ku tagnoo kaleeto ama bajaaj hebel aan ku tagnoo kaleeto maya ha dhiibin. aan kugula talinayaa fadlan shaxaad dhan iska yaray, iska ilaali, ka gambiso intaad ka gambiso karto shaxaad. qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay shantaas qodob oo ugu horeeya marka aan soo dhaqan gelino
inaan maxaa la dhahay kaydkaadii aad sameeyday ama saving account-kaagii kugu jirtay lacagtaas fadlan ha ahaato meel agtaada ah, ama maxaan ka wadaa yeysan awlin agtaada oo ha kaa dheeraato lacagtaas. Ha dhigina meel agtaada ah adiga marnaba, hana isku fiirinin haraagaaga. Ha fiirin markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa waxaa laga yaabaa inaad tahay qof han yar oo wax yar intuu 2 bilood ama 3 bilood ku ridi intii yar tahay ay cajabiso ee kala badbata kabacdina hadafkiisii intuusan bislaanin si ceeriina ku cuna waxyaabihii. sidaa darteed waa muhiim inaadan haraagaaga iyo waxyaabahaagii aadan fiirin, maadaama lacagtu waxaa leeyahay lacagta oo ninka ragga oo leeyahay faraha iyo feerahaba ka tirsan waad ogtahay, haddana waxaa laga sii rabaa inaadan fiirin haraagaagii. marka waxaan dareemayaa in 6daas qodob marka koowaad waxaad degsanaysaa hadaf gaar ah kaasoo aad rajeynayso inaad gaarto. qodobka labaad waxa waaye waxaa samaysanaysaa miisaaniyad gaar ah taasoo aadan baajinaynin $1 $2 inta rabta ha ahaato, ha yaraato ama ha badnaato, waa iska badanaysaa biidnillah. qodobka saddexaad waxa waaye ha isticmaalin qarash dheeri ah, qarashkaagu ha koobnaado mar kastaba. cost minimization wax la yiraahdo isticmaalaysaa, qarashka waa yaraynaysaa. qodobka afraad waxa waaye wax deyna ha qaadanin, deyn cusub ha qaadanin. qodobka shanaad waxa waaye wax shaxaada qofna ha siinin. shaxaad haddii lagu weydiiyo warniyo anigu wakaalamidaan ahay, because waxaad leedahay hadaf baad leedahay adoo noqonaynin xaasid, laakiin waxaa la rabaa inaad noqoto qof gembis badan oo nolosha hadafkiisa asaga mooyee cid kaleeto aysan la farafarayn. waxaa jiro wax la yiraahdo markaan hadafkaaga heshiigan ku leeyahay waxaa jiro xikmad dhehaysa, xikmad Ingiliisha oo dhehaysa taasoo af Soomaali markaan ku bedelo noqonaysa ha tusinin dadka qorshayaalkaaga iyo waxyaabaha adiga aad hiigsanayso, laakiin taas bedelkeeda waxaa tusitaan natiijada. marka waa muhiim inaadan hadafyadaada iyo waxyaabaha adiga khaaska ku ah inaadan dadka la wadaagin, sida tusaale ahaan qorshaha aad leedahay, miisaaniyadaada, adiga waxyaabaha ku goonida ah, tusaale ahaan oo kale shaxaad iyo haraaga waxaas lama wadaago. qodobka ugu dambeeyana wuxuu yahay 6 midka ah oo ugu dambeeya lacagtii aan meesha dhigay oo savingka ama akoonka ama simikaarka ama meesha goonida iigu jirtay waa inay taallaa meel aan agtaada ahayn, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad hore ka isticmaasho. ha isticmaalin walaal fadlan ilaa ay lacagtaas undiyu noqoto ay maajoor garowdo ay maxaa la dhahay bislaato oo adiga ranjigii ugu dambeeyay oo aad rajeynaysa ay gaadho. fadlan qodobkan waa muhiim inaad sidoo kale ilgooni aad ku fiirido lacagta agtaada markay taalo maanta dhan waa la wareegay, dhinaca maraad kala wareegay. maxaa la yeelay qof waxaa tahay aan hore wax u kaydsan jirin, ama hadduu rabo ha u kaydsado lacagtii waa la xabsanaysaa. waxaa jirta maahmaha Soomaaliya oo dhehaysa xarago iyo xoolo markay kugu cusub yihiin way ku xagtaan, yacni way ku dhibaan. dhalinyaradana kuma sii jirto maanta dhan wuu la xabsanayaa, qof walaalkiisa oo saaxiibkiisa u sheegaya uu ku faanayaa, islama doonayo. dantaada waa inaad garataa. fadlan waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaan intaas kusoo koobo. haddaba haddii aad rajeynayso inaad qodobadan dhaqangelido waa muhiim inaad maxaa la dhahay noqoto qof commitment leh oo ay ka go'an tahay